odayaal waxgarad culamaa udiin iyo dhalinyaro ka soo jeeda beesha surre oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay kulan ku yeesheen magaalada caasimadda ee Muqdisho. kulanka ayaa inta uu socday waxaa lagu lafaguray dhibaatada iyo dagaalada mar kale ka soo cusboonaaday deegaanada Kabaxanli iyo Deefow oo ka wada tirsan gobolka Hiiraan. waxaana xusid mudan in bartamihii sanadii tagtay 2014 mid ka mid ah beelaha halkaasi ku dagaalamaya ay gubeen dhul aad u baaxad weyn oo ay deegaansanayeen dad shacab ah oo aad u fara badan. afayeenka ururka dhalinyarada beesha surre ayaa warfidiyeenada u aqriyay war-saxaafadeed kulanka laga soo saaray. war-saxaafadeed ka soo baxay beesha surre waxaan cambaareynaa anagoo ah beesha surre dagaalka sirsifeynta ah ee lagu hayo beeshayna degto gobolka Hiiraan gaar ahaan Deefow iyo Kabaxanley oo ay ku hayso beesha Xawaadle oo ay dabada ka riixayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, wasiirka arrimaha gudaha iyo qaar ka mid ah maamulka gobolka Hiiraan sida gudoomiyaha gobolka, taliyaha ciidanka xoogga dalka ee gobolka Hiiraan iyo taliyaha saldhigga booliska taas waxaa cadeynaynaa in ay dagaalka ku dhinteen saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka gobolka Hiiraan. waxaa eedeen iyo dhaleecayn dusha kaga tuureynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud markii uu adeegsaday awoodiisa madaxweynenimo asagoo hor istaagay go'aankii xukuumadii ra'iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed. ugaaska beesha surre ugaas Cabdiraxmaan ayaa ugu dambeyn kulanka ka hadlay waxaana uu sheegay in dhibaatadii halkaasi ka dhacday uu mas'uul ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. dadka yagii lumay xoolaha yagii lumay wax walba waxaan u haysanaa madaxweynaha ninka la yiraahdo Xasan Sheekh baan u haysanaa. sababtu waxa weeye dalkana mas'uul asaga ka ahaa mas'uuliyiintii kalena asaga u diiday haddii uu diiday oo yiri aniga lamaanahay intii ka dambeysay wixii uu lamaanay banaadweynaha iyo caalamka iyo igad iyo wax walba waxaan ogeysiinaynaa inaan asaga xoolaha yagii iyo dadka yagii lumay inaan ku leenahay inaan muxuu ahaa waxaan doonaynaa adduunka muxuu ahaa in la geeyo dambiga uu galay madaxweynuhu. kulankan maanta ay isugu yimaadeen odayaashan iyo waxgaradka culamaa udiinka iyo dhalinyarada ka soo jeeda beesha surre ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli maanta uu boqday deegaanadii dhowaan diriirtu ay ka dhacday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Fataax Xasan Afrax.